waxaan soo qaatay digsi, waxa aan ku shubtay gram flour, besan flour ama garbanzo beans flour sida loo yaqaano burkoodii ayaan ku shubtay. waxaan ku darayaa loos, waa isla karinaya, waa isla shiilayaa. waxaan kaloo ku darayaa 2 qaado oo maaragtay sokore, 1 qaado oo cusbe ah. si fiican ayaan iskula karinayaa. besan flourka badanaa waxaa fiican marka aad shiilaysid ama aad karinaysid inaad very low heat geysid. waxaan hadda aan ku darayaa sesame paste, waxaan kaloo ku darayaa 1 qaado oo maaragtay butter ah. si fiican ayaan iskula karinayaa, waa iskula walaaqayaa, kadibna waa ka qaadayaa. markuu qaboobo kadib waxa aan ku darayaa 1 ukune oo aan si fiican usoo garaacay. waxa aan soo qaatay timirtii, dhexda waxa aan ka geliyey garbanzo beans pastigii ayaan dhexda aan ka geliyey. waxa aan soo qaatay malaygii, waa dhaqay, qasharkii ayaan ka saaray, si fiican ayaan u dhaqay. waxaan soo qaadanayaa xawaaj, waxaan soo qaadanayaa garlic, ginger iyo maaragtay sesame paste aan isku daray ayaan soo qaadanayaa. dusha ayaan waxa aan ka marinayaa malayga ayaan ka marinayaa, labada dhinac ayaan malayga aan ka marinayaa, iyo waxaan kaloo aan ka marinayaa dhexda ayaan ka marinayaa. waxaan kale aan soo qaatay timirtii oo garbanzo beans dhexda ka soo geliyey, malayga ayaan dhexda ka gelinayaa. malayga waxa ay siinaysaa maaragtay dhadhan aad iyo aad u macaan. marka waxa weeye waa very tasteful weeye, isku day inaad soo bisid. waxa aan soo qaatay toothpick, dhexda ayaan maaragtay ka gelinayaa oon maaragtay kula tolayaa malayga. dhowr xabo ayaan kula tolayaa si uu malayga u kala dhicin. waxa aan soo qaatay aluminium, basal ayaan maaragtay ku ritay, yaanyo aan si isleeg u gooyey, iyo garbanzo beanskii oo maaragtay hore aan usoo subsado pastiga ahaa iiga soo haray ayaan dusha ka saarayaa. waxa aan soo qaadanayaa birtaawo. birtaawada marka ay kululaato waxa aan ku shiilayaa kalluunkii dhinac walba 1 minute. dhinaca kale ayaan u gedinayaa, sidoo kale waxa aan shiilayaa 1 minute. marka aan shiilo 1 minute waa ka qaadayaa, waxa aan dusha ka saarayaa sixnigii aan foornada kula gelinayay ayaan dusha ka saarayaa. sesame paste ayaan maaragtay dusha kasii marinayaa si uu siiyo maaragtay qurux iyo madow. foornada ayaan gelinayaa, waxa aan foorneynayaa 18 minutes. marka uu madoobaado malayga waa ka soo saarayaa. sixni oo aan salad iyo yaanyo aan ku shubto ayaan dusha ka saarayaa. waxaan kaloo hareeraha aan kaga qurxinayaa timirtii aan garbanzo beanska dhexda kasoo geliyey ayaan hareeraha maaragtay ka dhigayaa. timirta waxa ay siinaysaa macaan iyo dhadhan aad iyo aad u wanaagsan, sidoo kale waxa ay siinaysaa maaragtay qurux.